إن شاء الله تعالى warkooban waxaynu ka tilmaami doonaa sidaynu u soo dhoweynayno ama u istiqbaalayno bisha Ramadaan oo aynu ognahay inay ka mid tahay arkaantii islaamka oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamnimada shan ayaa lagu bineeyey uu nabigu tilmaamayo shantaasi ay ka mid tahay markaa waa sawmu ramadaan bisha ramadaan in la soomo idan rukni weyn oo ka mid ah arkaanta islaamiga ayaynu isku dayaynaa inaynu gudanno nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa ugu bushaarayn jiray waa xadiidka sunan النasaa'i ku yaala sheekh alalbaanina saxiix ligayri ku tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahy ataakum ramadaan shahru mubaarak farad allahu caza wajala calaykum siyaama waxaa idin yimi bishii ramadaan oo bil barakaysana oo ilaahay subxaanaه wa tacaala soomkeeda idinku waajibiyey albaabada samadaa la furaa ama albaabada jannadaa la furaya albaabada naartana waa la xidhayaa buu nebigu tilmaamay shayaadiinta kuwooda waaweyn ee maradada ana shaydaannimada ku mudhxay kuwaana waa la xidhayaa waxaa ku jira buu nebigu ku bushaareeyay habeen kun habeen ka fadli badan qofkii khayrkeeda laga mamnuuco ee khayrkeeda heli waaya kaasi waa khayrlaa buu nebigu ku tilmaamaya faqad xurim yacni waa mid khayrka laga mamnuucay sida ogeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bushaaraynayaa qiimaha ay ku leedahay dadka muslimiinta agtooda iyo sida la rabay in loo weyneeyo waxa kuugu filan nebigu calayhi salaatu wasalaam weynaynteeda waxa uu ku tilmaamay oo runtii keensanaya in qofka muslimka isku dayo inuu bishatan uu u diyaar garoobo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan sunan ibnu maaja ku yaala sheekh alalbaanina uu saxiixinaya ama xasan ku tilmaamayo طalxa ibnu cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy laba nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo mar soo wada islaamay oo islaamnimadoodu mar qura wada ahayd طalxa ayay la joogeen waxaa mide aad buu u dadaali jiray laakiin labaduba waa dadaalayeen laakiin nin baa dadaalkiisu aad u muuqday markii dambena jihaad buu istishaad ku qaato shahiid buu noqday kii kale wuu ka nolol dambeeyey oo sanad buu sii noolaa kadib buu sanad dabadeed kii kale dhintay riyo ayuu ku riyooday markaa طalxa ibnu cubaydillaah riyada wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo dabeetana albaabkii jannada inta la fura kow waxaa loo yeedhay kii dambe dhintay labada kii shahiidkee hor dhintay mooyaane kii dambeeyey ayaa loo hor yeedhay markaasaa haddana loo yeedhay buu yidhi kii shahiidka noqday kadib baa aniga laygu yidhi buu yidhi adiga weli wakhtigaagii may gaadhin warkiibaa saxaabada gaadhay waa laysla dhex maray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi miyaa la yaabantiin haabay yidhaahdeenoo labada nin dee ka hore nala dadaal badnaa kii hor dhintay ee weliba jihaadka galay ee shahiidka noqday kaas baa dee dadaalkiisu nala badnaa bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey alaysa qad makatha haada bacdahu bisana kani kan dabadii miyaanu sanad noolayn buu nebigu yidhi waxay yidhaahdeen haa waa noola ramadaanna waa soo gaadho waa soomay oo waa tukaday oo masaajidkuu ku tukaday soomaha buu nebigu yidhi sanadaasi markaasay yidhaahdeen haa kadib buu nebigu yihi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i waalard labada nin waxa u dhaxeeya inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa yacni kan cimriga dheeraadkaa la siiyey ee dabeetana cimrigii dheeraadkaa bil ramadaan weliba u soo gashay ee bishii ramadaan soomay ee masaajidka salaadda ku tukanayey ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa acmaasha uu samaystay ee kaa hore ka xidhmay inay dhaafinayso kii hore acmaashaana wuxuu nebigu ka tilmaamay soon iyo salaad idan hadday qiimaha intaa leeg ramadaan iyo ajarka la helaa sidaa uu yahay
waxaa habboon in ramadaan loo diyaar garoobo oo aan cunno loogu diyaar garoobin. dadku inta badan waxay dhahaan bishii ramadaan baa soo gelaysa, dabeetana reeraha biilkooda la kordhiyayo cunnada aada loo badsadaa. cunnaduna waa wixii laga soomayeyba. waxay ahayd bishan in biilku hoos u dhaco oo dadku cunnada yaraysto oo la soomo. akhriya adduunba saasay faa'iidadu ku jirtaa. waxaan rabaa markaa laba qodob oo qura inaan tilmaamo. labada qodob waxay yihiin ramadaan kow waa bil qofka muslimkii uu u diyaar garoobo inuu dembiga iska reebo. waa bil uu u diyaar garoobo qofka muslimka ah sidii sanadka ama cumrigiisaba intii tagtay dembigii soo raacay uu isaga maydhi lahaa. hami lmakfira waa inuu ku noqdaa agteenna hami aad u weyn. waayo dadku saxaabada maalan nebigu calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi saxaabiyi, markaasuu wuxuu yidhi, nebigu markuu ka warramay jihaadka iyo aliimaanu billaahi iyo in la jihaatamo iyo acmaasha ugu fiican inay tahay, ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, haddaan dagaal galo oo jihaatamoo lay dilo dembigayga ma la dhaafayaa? dabeetee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, nacam, in qutilta fii sabiili illaahi wa anta saabirun muxtasibun, haddii aad dhimato ilaahay dartii jidkiisa lagu dilo adigoo sabraya oo xisaabsanaya oo soo jeeda, waan dhabar jeedinoo sii ordaynin, haddaad sidaa ku dhimato haabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkii baa haddana uu nebigu su-aashii dib ugu celiyo, markaasuu yidhi kayfa qult, maxaad igu tidhi? ninkii baa warkiisii ku celiyey, waa dembigayga ma la dhaafayaa haddii aan dee jihaatamo geeriyoodo? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa, waa la dhaafayaa. intuu intii hore u sheegay buu nebigu yidhi ila dayn mooyaane. daynta bini aadamka xaqiisa inta laga qaato oo loo indhacaseeyo kaa isaga la dhaafi maayo. jibriil baa hadda ii sheegay buu nebigu yidhi. xadiisku saxiixu muslimku ku yaallaa. idan waxaad arkaysaa saxaabadani hamigoodu inuu ahaa dembigayga ma la dhaafaya. waxa uu raadcaynayaa waxa weeyaan xataa jihaadkan iyo baabkan oo dhan inuu dembi dhaaf helo. si awgeed ba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa duul kale oo muslimiinoo hamigoodu ka ahaa. fircawn saxaradii ka hor timi ee nebi muuse markii mucjizaadkiisa ay arkeen ilaahay rumeeyey, fircoon waa hanjabay oo wuxuu yidhi waa idin laynayaa, gacmaha iyo addimadan talantaa laydin goynayaa oo waa idin salbinayaa, geedkaan idinku xidhayaa oo saasaan idin gelayaa buu ku hanjabay. waxay iyaguna ugu jawaabeen saa qur-aanka rabbi ku tilmaamayo, qaaluu laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun inaa naطmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniin. dhib uma aragna bay leeyihin waxaad sheegaysa oo dhan, ilaahay xaggiisaanu u noqonaynaa, waayo waxaanu rajo ka qabnaa bay leeyihin in ilaahay dembiga iyaga dhaafo. ayaanu rajo ka qabnaa maadaamaanu noqonnay awala almu'miniin. xadiidka iyo aayadda qur-aaniba waxay tilmaamayaan marka hamu lmakfira say dadku uga fakerayeen dembigooda inaan la dhaafo. waxay dhaafsanayaanna uu yahay inay naftooda waayaan. haddaba ramadaan waa fursad qaaliya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho. misfaat uu qofka muslimka ahi xamaamu dembiga iskaga maydho, uskagiisa uu ku reebo. si awgeed baa axaadiista saxiixeynka ku soo arooray wuxuu nebigu tilmaamayaa, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhiro iyo ajarkeeda iyo wixii la faroo dhan isagoo rumaysan, waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya. casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waabu iska tiro badan yahay isagoo noocyaa. soon siyaasiyaa jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunnaday ka soomeen si ay qadiyaadkooda u muujiyaan. soon baa jira dadka badh la isku dhuubo la yidhaahdo miisaanka si looga rido intaas inaanu wax cunin. soon baa jira xataa kuwan ay yidhaahdaan malikaatuljamaalka iyo waxa kan aflaamta dhigiyo kuwa kan la soomiyo oo la rabo qurux inay ku yeeshaan. laakiin kani waa soon ixtisaab ah, soon danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay dembigaaga ku dhaafo. soon dantiisa koowaad iyo qaradku uu yahay
إيمانا واحتسابا والنبي يقول غفر له ما تقدم من ذنبه كاو حلا دافا ذنبي سيهوري markaas haddana mar labaad nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi ninka ramadaan kaca ee tukada iyadoo shardigii weli uu yaallo iimaana واxtisaaban ah gufira lahu ma taqadama min denbi dunuubtiisa wixii hore uga dhacay baa la dhaafaa haddana mar saddexaad buu nebigu wuxuu tilmaamay habeenka laylatulqadriga ninkii kaca ee iimaanan waxtisaaban la yimaada salaad tukadoo cibaadaysta ixyaa sameeyo nooleeya gufira lahu maa taqadama min denbi idan saddex shay buu nebigu tilmaamoo ramadaan ku jira oo saddexdaba dembi dhaaf lagu helo midi waa soonkii maalinimo la soomayey midna waa habeenkii wixii la tukanayey midna waa habeenka laylatulqadriga oo si gaar ah habeenada kale uga mudan oo sanadkoo dhan dee habeenka ugu fadli badana saddexdaa shay bay ramadaan wadataa oo saddexduba yahay in dembiga lagu dhaafo saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu ku tilmaamayaa qofkan qowlu zuur iyo walcamalu bihi iyo waxaas iga tegan ilaahay cunno inuu ka tagiyo sharaab dankama laha macnuu waxa weeyaan qardiga koowaad ama qasdiga koowaad ramadaan aynu u qasdayno waxyaabaha ugu buuran waxaa ka mid ah inaynu u xaydxaydano sidii ilaahay dembigeenna u dhaafi lahaa dee qofka raba in dembigiisa la dhaafaana dee waa inuu ka dembe joojiyaa kana hadda ramadaan baan wax walaaqaya haddana kii hore in layga dhaafaa baan rabaa dee waa mushkilad haddaad rabto cutuur iyo inaad wax isku buufiso adoo uskagaaga iyo qurunkaagale la isma buufiye marka dhididkiiyo waxa hore iska maydhaabaa la isbuufuufiyaa waxaan uga dan leeyahay inay noqoto bil aynu toobad keenayno oo dabeetana dembi dhaaf ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayno oo iimaanan waxtisaabanka la sheegay uu dhab inaga yahay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka koray dabeetana markuu jaranjaro fuulaba aamiin buu yidhaahdaa wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa wuu sii socdaa aamiin buu yidhaahdaa markaasay saxaabadii weydiiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyo wa aamiin baad leedahay caadadaadana may ahaan jirin mimbarka markaad fuusho inaad aamiin tidhaahdaaye xadiidka riwaayadda ibnu xibbaan iyo ibnu khusayme ay soo saareen wuxuu nebigu yidhi man adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu fadakhala annaara faabcadahu allah qul aamiin faqultu aamiin jibriil baa yimi buu yidhi ina jibriil calayhi salaam aataanii faqaal jibriil baa yimi wuxuu yidhi qofka bil ramadaan soo gaadho ee dembigiisa la dhaafi waayo ramadaan oo la yidhi soonkaa dembiga lagu dhaafaya oo qiyaamuleylka lagu dhaafaya oo leylatulqadriga lagu dhaafaya waxaasoo dhamme intay soo maraan haddana dembigiisa la dhaafi waaye naar gala kaa ilaahay naarta ha ku fogeeyo jibriil baa habaarkaa wada nebi maxamedna aamiin buu ka dabaleeyey waxaad qiyaastaa sayidulmalaa'ika oo ducaynaya iyo sayidulkhalqi oo aamiin ka daba leh in jibriil la duceeyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aamiin ka daba yidhaahdo waxaa lagu ducaynayaana ay tahay qofkay ramadaan u soo gashay dembigiisa la dhaafi waaye isla xadiidka oo mar labaad abu hurayra warinayo riwaayadda imaamu tirmidi uu soo saarayo xadiidkana sheekh alalbani saxiiba ku tilmaamaya ayaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ragima anfu rajulin dukirtu cindah falam yusalli calay sanka ha u dhaco ama afka ciidda ha la galo yacni waa eray tilmaamaya qofka halaagiisa iyo dhibtiisu inaanay qiimo badan ku fadhinin qofka agtiisa laygu soo hadal qaada buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ee aan igu sallinaynin haddana mar labaad buu ducadii ama habaarkii ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ka kalena wuxuu ku sheegay rajulun dakhala calayhi ramadaanu ثuma انsalaka qabla an yugfara lah nin ramadaan u soo gashay oo ramadaan ka dhammaatay intii aan dembigiisaba la dhaafin ramadaan u soo gasho ramadaan ka dhammaatay iyadoo aan dembigiisa la dhaafin ka saddexaadna wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nin labadiisii waalid ama mid ka mida soo gaadhay oo janno geli waayey
يعني iyaga ixsaan falkooda janno ku geli waaye ramadaan marka ayuha alaxiba ereygaan raba inaan tilmaamo wuxuu waxa koowaadaan u diyaar garoobaynaa waa inaynu dembi iska maydhno diyaar garowgeenna koowaad waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala bishatan dembigeena kaga maydho wuxuu nabigu inoo tilmaamay dembiga mid maalinle oo la maydhaa inuu jiro acmaal toddobaadle dembiga lagu maydhaa inay jirto acmaal sanadle dembiga lagu maydhaa inay jirto saa awgeed buu xadiidka muslim wuxuu nabigu ku tilmaamayaa salaadaha shanta ahi dembigay maydhaan midba tii ka horraysay intii dembi aad gashay bay maydhaysaa jumca ilaa jumcana dembiguu maydhaa ramadaan ilaa ramadaanna dembigay maydhaa haddii kabaa'irta laga fogaado waayo kabaa'irtu dee dembi dhaaf bay waxay u baahan tahay toobad sakaa'irtu laakiin dee horta ma yara kitaabka la qorayaana laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha baa ilaahay tilmaamayay adi waxaad qiyaastaa subaxii waagu markuu kuu bariyo aad indhaa kala qaado ilaa yaa intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlaysa ama mid hadlaya dhegaysanaysid waagu markuu kuu bariyo ilaa yaa intaad ka seexanaysa inta ka dhex leh ama adaa warramaya ama qaar warramayaad dhegaysanaysaa inta aad cibaado samaynaysa gaar inay iska tirsantaa laga yaaba waxaad dib u xisaabisaa intaa inteebaa talow khayraad ka shaqaynaysa oo aad is leedahay miisaanka xasanaadkay ku qormaysay intaad se is leedahay miisaanka sharkay ku qormaysay acmaasha aynu samaynaynaana hadday dee acmaal kaamila tahay waa dhab way dhaafaysaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso oo salaadba salaadda ku xigta hadday dembiga dhaafayso jimcaha maxaa u soo hadhaya ilaan intaasoo salaadood baad soo tukatee se jimcaba haddii toddobaad kasta jimcaha lagaa dhaafayo ramadaanta maxaa u soo hadhaya ay dhaafaysaa horta waxa isweydiinta leh salaadaha dembiga dhaafa waa kuwee ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waaqim الصalaaةa طarafiya الnahaari wazulfan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikra lلdaakiriin waa dhab in salaaduhu dembiga maydhaan laakiin nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka abu daawud iyo nasaa-i iyo kayrkood ba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo ina الrajula layansarifu wama kutiba lahu ilaa cushru salaati midkiin buu nebigu leeyahy salaad buu tukadaa iyadoo aan salaaddii looga qorin 10 meelood oo meel mooyaane 10% 10% ayuu salaaddiisii leeyahay qaar baa tusuc leh 9 meelood oo meel thumun wuu soo waday ilaa uu qaar soo gaadhsiiyey 50% qaar baa 50% leh dee salaadda horta inta aad soo jeedaa baa laguu qorayaa oo maqbuulah inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin intaad soo jeedda ilaahay la khitaabaysee dhabtaa baa laguu qoraya oo inta kale maxay noqon xaalkeedu ilaahay baa garan laakiin kolleyba cidi ku odhan mayso salaaddii mar labaad tuko salaaddu adiga way kaa hadhay tukashadeedii oo mar dambe lagu qabsan maayo maxaad u tukan weyday laakiin wixii la rabay ma helaysaa sidaa ogeed ba safka waa ku wada jiraa laakiin isku ajar ma nihin isku wax ma duhur la wada tukay ama casar la wada tukay laakiin casaradu ma sinna ilaahay waa loogu kala dhow yihi surankuna kuma sinin ramadaantuna waa sidii oo kale idan jafjafkeenna marka laysu geeyo haddii wixii casar iyo duhur intii u dhexaysay ama subax iyo duhur intii u dhexaysay jafjafkaagii laysu geeyey hadday dhammaystiri waayaan ta dambaa waxoogaaga lagaa jafaya haddii waxoogaagaagii marka laysu geegeeyo ilaa jimcaha jafjafkii isu tari waayo dee salaatuljimcaha maydhaysaa usbuucyadii wixii ka soo hadhanay hadday suurtoobi weydo ramadaantaa meesha loo diyaar garoobo in la iska maydho sanadka wixii ku soo raacay sanadka wixii ku soo raaco dhan inaad iska maydho ramadaan baa meesha loo diyaar garoobo sidaa awgeed waxaan leenahay shayga ugu horeeya ee aan rabno ramadaan inaan u diyaar garownaa waa inaynu dembi maydhno wixii aynu dembi soo gallay inaynu iska maydhno bisha ramadaan gudaheeda xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo saddexdaa noocba in dembiga loo maydho inaynu u diyaar garowno qodobka labaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan
aadanuhu iyadoo furaska wakhtiyada fursadda aad helayso lama dayaco. Maalan ninka taajirka ahi ee dukaanka yar ee dharkaa haysta wakhtiyuu u diyaar garoobaa in xog wax loo iibsanayo. Maalan dadka muslimiinta ahi wakhtiyada ay dharka gataan maxaa u badan? Caruurta iyo reeraha iyo waxaa ciidaha u badan. bacdlu hadduu ciidda seexda ka waran aanu ku talagelin labadii ciidood inuu wax iibiyo, waxaa laga yaabaa sanadkao dhan wuxuu iibinaya inay ka badato wuxuu iibiye maxay labada tan wakti. saa daraaddeed baa nin kastoo tijaarada ku jira wuxuu isku dayayaa inuu u diyaar garoobo inaanay dhaafin fursadda tani. noloshoo dhan baa caynkaasiya. cid waliba wakti ayay furaskeeda heshaa oo tijaabisaa inaan fursadda aanay ku dhaafin. diin ahaan markaad ajar ka fakerayso, salaadaha kala ajar badan, maalmaha kala ajar badan, habeenada kala ajar badan, acmaasha la qabanaya kala ajar badan, awraadda la akhrinaya kala ajar badan. qofka xoogga u fakeraya wuxuu isku dayayaa wax walba xagga sare inuu ka heli karo. wa fii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun. inaad xagga hore marto. bisha tani markaa waxay ka mid tahay furaska ugu badan ee dadka muslimiinta ay ajarka raadiyaan. ajarkii ugu badnaa sidaad u heli kari lahayd waa wakhtiga kan. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay acmaasha kale oo dhan bini aadamkaa iska leh soonka mooyaane. fa innahu lii wa ana ajzi bihi. soonka se anigaa iska leh oo anaa ka abaalmarinaya. wasiyaamu junna. gaashaan buu idinka yay dembiga. haddii midkiin maalintiisa soonta uu sooman yahay yuu rafad samaynan, afxuma yuu ku hadlin, yuu buuqin oo caytamin, yuu dadka maagin. haddii lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa war waan soomanahay. xadiidkaa dheer inagu qaybta ugu horrayso quraan hadda uga dan leenahay. soonka anaa iskale baa ilaahay yidhi. acmaashoo dhan macidaan ilaahay ahayn baynu u samaynaa? maya. camal kastoo aynu isku dayna inu la nimaadno dee ikhlaas ixtisaab baynu ula nimaadnaa ilaahay subxaana wa tacaala. waxay culammadu isweydiiyaan maxaa soonta rabbi xaggiisa gaar loogu yeelay? waxay culammadu yidhaahdaan iyagoo deliishanaya xadiidka imaam النasaa'i sanadka صaxiixa uu ku soo saaray kulu xasanatin yacmaluha ibnu aadam falahu 10 amhaaliha ila الصiyaam. acmaasha qofka bini aadamkii sameeyo waxaa loogu jaangeeyaa jaangoynta ugu yari waa 10%. waa halkiiba 10 laab. halkiiba 10 laab 10% maaha. yacni waa midhkaad samaysaba in lagu 10 laabo. 10 laabku luqadan dambe ay ku hadlaan haddaynu ku sheegno dee waa 1000%. ilaahay subxaana wa tacaala waa kariim, waa deeq badan yihi. midhkii haddii midh lagugu siiyo dee waa 100% baad faa'iida. 100% baad heshay intaad samaysay in leeg. laakiin marka la 10 laabo waa aad buu u tiro badan yahay. waxaa qur-aanku kaloo inoo sheegay kuwo intaa ka badan yahay oo 7 sanaabil aayaddii kay tilmaamaysay 700 jeer qaar loo labanlaabayo. waxaa kaloo la sheegay qaar looga badiyo. culammadu waxay yidhaahdaan mawaasiinta wax lagu qiimeeye kale qur'aan iyo xadiidku in badan bay ka hadleen. laakiin mas'alatu soom hadday noqoto soontii alla rabay oo ah taa iimaanan waxtisaaban loola yimi, taa aan buuq iyo qaylada iyo dagaalka iyo afxumadu la soconin, taa cibaadaadka iyo ilaahay loogu dhowaanaya leh, tii rabbiina amray soontii ahayd haddii loola yimaado iyadu miisaankaas oo dhan way ka baxsantay. macnaheedu waxa weeyaan ajarkeedu wuu ka badan yahay bay culammadu ku tilmaamayaan. oo waxay leedahay ajar markaasi ka badan yudaacifu liman yashaa ah wallahu waasicun caliimka ah. saa awgeed ayaa axaadiid badan waxaa ku soo aroortay kulu camal ibnu aadam yudaacaf lahu alxasana b10 amhaaliha ilى 700 ضicf. qaala allahu subxaanah ila sawma fainahu lii wa ana ajzi bihi. waa xadiid saxiixinka ku yaala. ama qur-aanka inamaa yuwafa الصaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ay mufasiriintu ku tilmaamaan in lagaga warramayo.
waxaan uga dan leeyahay masaladan waa fursad ah inaad ajarka ugu badan shaqaysan karto waa acmaashaan ajarkoodu mawaasiinta aynu naqaano aanay ku jirin ayay soontu ka mid tahay sida awgeed waxaa habboon inay bisha tani qofka muslimkii uu diyaargarow dhaba uu diyaargaroobo oo ah si aad maximumka u gaadho waxa fiican acmaasha dunawiga intaad iska yarayn karta inaad iska yarayso oo dee iyada bishan acmaasha la qabtee gaarka waxaa ka mid a wixii ictikaafka loo odhan jiray ictikaafkuna waa inaad dee masaajidkaba isku soo xidho aad acmaasha dunawiga oo dhan oo kale inaad iskaga timaado xataa iyadoo laga yaabo acmaasha lafteedu qaar ajar ku jiray inuu yahay wakhtiyada tan waxay yidhaahdaan waxaa sii fadli badan inaad tan cibaadada maxdiga aad u sii baxdid erayadan tilmaamaya markaa waxay ku kooban yihiin bisha tani in loo diyaargaroobaaba fiican laakiin maxaynu ugu diyaargaroobaynaa cunno iyo wax la mid ah mise waxaynu ugu diyaargaroobaynaa inaynu heli karno wixii dembi aynu xambaarsanayna inaynu iska rogno o iska reebno ajar inta la shaqaysan karaya intii ugu badnaydna inaynu shaqaysanno sawgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista iyo nusuusta badane ka soo aroortay waxay tilmaamayaan acmaasha la sameeyo inta badan ramadaantu xataa fii gayri ramadaan inay ka fadli badan yihin qur'aan akhris ha noqoto sadaqa la samaynaya ha noqoto salaadaad iyo cibaadaad la samaynaya ha noqoto waxaan oo dhamma ujuurtoodu inay tiro badanayso marka bisha tani waa bil u baahan zaad qaadasho inaad u diyaargarowdo zaad qaadashadaasi waxay keensanaysaa acmaalu dunyaa dhammaanteed inaad yaraysato acmaalul aakhirana inuu noqdo hamiga weyna aad u socotaa haddii dadkaas qur-aanku uu ka warramay ama axaadiistu ay ka warramtay ay rabtay dembigooda in lagu dhaafo in qudhoo la iska jaro oo uu nafta u bixiyo oo uu leeyahay bidix iyo midig iyo saad doonaysa noo googoo waxaanu damacnagaga jiraa ilaahay dembi dhaafkiise nebi maxamed wuxuu inoo sheegay bisha tani inay tahay bishii dembi dhaafka marka anigu kelmaddayda caawa waxaan ku soo koobaya waa labadaa qodobo qura oo war haddaad doonayso in ilaahay uskagii iyo dembigii waxa mashaakilina haystoo dhammina waa dembi waxa dhibina haystoo dhammina waa wax dembi ka yimi waa bimaa kasabat aydiikum dunuubta haddaynu rabno inaynu iska reebnana inaynu bishan u diyaargarowno oo bishii dembiga la maydhi jiray haddaynu rabno acmaasheenna inaynu maximumka gaadhsiin karnana oo ah ajarka ugu badan inaynu heli karnana waa bisha la shaqaysta ajarka ugu badaniye inaynu yana isku dayno halka ugu sarraysa inaynu gaadhi karno warkayga caawa intaas baan ku soo koobaya sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin